السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابta qaaliga soo dhawaada. Magacayga waa Cabdicasiis Cabdullaahi. Social media waxaan kusoo galaa Cabdicasiis Brush, hadduu noqdo YouTube iyo sidoo kale TikTok ba iyo xitaa Instagram. Si kastaba haataba maanta insha Allah waxaan halkan rabaa inaan aan maaragta sameyno structural layout, hadduu noqdo column, footing iyo sidoo kale slab. Waxaas oo dhan sameynana insha Allah. Okay, rifadaan ku sameynaynaa. Sida aragtaanba ugu horeen waxaan ka dooranayaa maadaama kan hore aan ii furnaa, marka waxaan rabaa mid cusub inaan soo furto. Waxaan leeyahay file, waxaan tagayaa file, ka bacdi waxaan ka dooranayaa new. Sidoo kale markaan new ku doorto sidaan ii soo baxdaan waxaan kasii dooranayaa metric structural template. Waxaan sii leeyahay okay. Okay, marka mid cusub aad ii furmay, mid cusub aad ii soo furmay sax. Okay, marka waxaan u baahanahay markuu saan yahay ugu horeen waa inaan isku weeyo horta unitka markaas aan isticmaalaa. Unitka isticmaalaa isku weeyo waxaa leeyahay UN. Isla markii daaqadana ku soo boodaysa lentiga ka fiirinaya. Aan waxaan isticmaalaya hadda millimeter iska isticmaalaya. Intana calaamadaas mm iska qaadanaya. Waa calaamad loo soo gaabiyo millimeterka. Okay asi leeyahay. Ugu horeen markaan meterka bedelo ama adii meterka dhigo ama sidoo kale inch ka dhigo ama millimeter waxa doonta ka dhigo adiga ugu xiran tahay. Kan iska delete gareeyo sababtoo ah wuxuu ahaa midkii hore. Okay, midka cusub la jaan qaada marka. Waxaan tagayaa marka project browser, waxaan iska delete gareynayaa level analytical iyo level 2 analytical. Waxaan la iska delete gareynayaa marka click C delete garey, mar kale click C hadana si delete garey. Okay, level 1 level 2 meesha ugu soo hartay. Marka waxaan sidoo kale sameysanayaa marka leveladii inaan create gareeyo. Waxaan tagayaa east markaan tago oo sidaan ii soo muuqato marka mid walbana magaca ula baxayaa marka. Waxaan rabaa kan click C waxaan ula baxayaa foundation. Mid walba marka magaca insha Allah ula bixi doonaa. Okay, marka waxaan dhahayaa foundation. Okay, de yes de marka foundationka yani hoos marka isaga yani hoos uu sii jiraa sax. Marka waxaan leeyahay maadaama kan foundationka yahay minus 500 ama waxaan dhahayaa kan hoosa sii aado minus metrio 20. Okay, kanna marka 0 ayaan ka rabaa. Kanna waa meesha belief uu ka bilaaban lahaa buildingkaaga, meesha ka bilaaban lahaa waa marka this level marka waxaan leeyahay 0. Okay, 0 markaasaan usoo geliyo kana marka asagana sidoo kale magaca iga bedel. Waxaan dhahayaa first floor 1 floor first floor. Okay, sidoo kale marka waxaan leeyahay marka structure dooro ka bacdi levels dheh. Waxaan kaloo kasii dhahayaa big line ka dooro. Intaan offset ka dhahayaa si dooranaya waxaan leeyahay waa 3 mitir waana 3000 maadaama millimeter isticmaaleyno. Marka click C sidoo kale si click garee ilaa 3 floor u baahanahay. Sidoo kale si click garee. Okay, floor koowaad soo okay kana marka waxaan dhahayaa second floor. Marka waa inta click C ka bacdi si u dhaf click C 2 n floor. Okay, markaas waxaan leeyahay marka yes. Okay, midka markaas xiga aan sii doorto hadana marka waxaan leeyahay third floor sax. Okay, third floor. Okay, sida yes. Midka ugu dambeeya oo ah fourth floor dheh. Floor. Okay, and then yes sida marka leveladii marka waa samaystay. Waxaan u baahanahay marka levelada markaa sameeyo marka blankia soo sameysanaya marka. Okay, marka ugu horeen waxaan tagayaa level 1 igey. Level 1 markaasaan u joogo waxaan sameynayaa marka waxaan tagayaa structure ka bacdi waxaan tagayaa grids dheh. Grids sooma. Okay, ugu horeen marka aan saan u sawiro waa marka waxaan rabaa in ay noqdaan xarafka a aan ka dhiganayaa. يعني كوان حرفها ربا كو جيفانا نمبر ساكر إينايا. أوكي انت مركو حندايا 2.5
ama halkaan ka keeno ama waxaan ka keenayaa dhankaan ku sawirayaa bidix okay waxaa leeyahay structure waxaan kala tagay grids inta ka sawir marka okay xaraf ahaana xaraf ayaan ka dhiganayaa xarafka A okay kabacdi marka ama copy aad dhigi kartaa copy iska sii dheh saas sii dooro sii soco marka waxaan leeyahay 2.5 micnaheedu ah 2500 ka soco marka sidoo kale haddana wax kala rabo inaan sii dhaho 3 sii dheh 3 sama oo 3 macnaha waxa u geliyay mitir ahaan u geliyay marka waa inaan millimeter ka dhigaa marka dhigu celi copy dheh waxaan dhahayaa markaan 3 soo hormarsii okay sidoo kale haddana 2500 haddana waxaan dhahayaa 2.700 leh sooma haddana waxaan dhahayaa 2.5 haddana waxaan sii dhahayaa 3 dheh okay markuu sidaa ii yahay marka waxaa rabaa marka waxaa taawataa waxaa dhahdaa ZA dheh si macnaha zoom fit markaas lagu soo sameeyo okay kan xoogaa clicksii xoogaa yar ii yaree weli dib igu celi okay intaa marka saas u soo qabo move soo meeshaan oo kale keen si centerka markaas uu sii aado oo zoom fiican anagan u sameyn karno mid kamid ah clicksii waxaan leenahay create similar ka dooro kabacdi marka create similar ka doortana intaa rabaa marka inaan saan sidaan igu sabir clicksii markaan marka numbers rabaa inaan ka dhigo sax markaan waa inaan numbers ka dhigaa marka sorry number 1 okay kabacdi marka copy soo dheh okay intaan imaanaya waxaan ka dhigayaa 3 meter 3 meter dheh 3 meter aan ka dhigayaa sorry yani idan meter ahaan u geliyay mar kale waxaan ka dhigayaa 3000 sidoo kale waxaan ka dhigayaa haddana adii 2500 kale ka dhig sorry 2500 ka dhig sidoo kale midka ugu dambeeya waxaan ka dhigayaa sidoo kale 3 ka dhig 3 iskaga dhig aan ka dhigayaa midka ugu dambeeya waxaan dhahdaa oo kale 3 meter okay sidaa marka balaankayga marka qaabkaan rabaa marka inuu igu muuqdo okay weli marka isii qurqurxi xoogaa dib igu soo celi kana waxay dib saan soo celi kana sidoo kale mid kamid ah clicksii kana waxay asagana sidaan oo kale u soo celi kan hadaa waxay soo celi afterkiisa okay si zoomka xataa yani si qurux badan ugu soo muuqdo okay markuu saan yahay marka hadda marka waxaan sabiri karaa columns waa sabiri karaa beams waa sabiri karaa wax walba hadda waan ku sabiri karaa markuu saan yahay marka waxaan leeyahay columns ka sabirinaya marka anigoo jooga first floor okay waxaan tagayaa structure aan tagayaa kabacdi waxaan sabirinayaa ama uu horeen aan sabirto footing aan sabirto anigoo markaas tagaya foundation clicksii markaas waxaan dooranayaa structure sidoo kale waxaan dooranayaa isolated haddana isolated markaan doorto qaybtan oo properties ka fur kabacdi waxaa kasii doorataa footing rectangular mid kamid ah ku dhufo edit tab dheh markaa dhahda kabacdi duplicate aan dhahaynaa marka waxaan leenahay footing f aan kasoo qaadanaynaa footingka cabirkiisa marka waxaa uu noo noqon doonaa mitir iyo 20 lagu dhuftay 500 mitir iyo 60 mitir 20 mitir 60 inaa footing markaas ka dhigo okay marka deptigiisa marka waxaan ka dhigayaa 50 cm dheh ayaan ka dhigayaa footingka kan waa mitir 20 kanna waa mitir 60 markaas mitir 60 ayuu noo noqon doonaa oo millimeter ah okay markuu saan marka waxaan rabaa marka inaan sabiro inaan darowgareeyaa rabaa darowgareenta marka laba qaab u darowgareyn kartaa inaan si manual click au siisidna waa samayn kartaa saalaano kale inaad samayso waa samayn kartaa ama waxaan samayn karnaa ama sidoo kale waxaan samayn karnaa inaad tagto aad grid sidaas inaa ugu soo samayso hal mar wixii dhan hal mar haddii aan u baahna marka rotation aan ku sameeyana orientation ahaan inaan bedelo footingkana calaamad space bar leeyahay inta aanan finish dhigin marka aniga hadda waxaan u baahanahay marka sidaan u baahanaa marka inuu noqdo marka waxaan leeyahay marka finish dheh
marka footinkii qaabkan ayuu marka hadda noo soo muuqday ujeedaa footinka hadda qaabkan noo soo muuqday 3D ahaan aan fiirina marka 3D ujeedaa 3D haddii weliba oo aan halkan furo shaded maada sii dhaxana ujeedaa fiir qaabkan ayuu u yaalaa okay marka la igu celi floorka koowaad igey marka hore waxaa joogay foundation hadda floorka koowaad igey waxaan rabaa inaan sawiro column iska mar structural tag ka bacdi column ka dooro inta fur markaas waxaan leeyahay marka rectangular column ka soo dooranaya edit tab aan sii dhaxaya duplicate de markaan column ka marka c waxa c ka soo gaabanaya column ka laba